safarkay wuxuu ahaa aan ku tagay xamar wuxuu wacyigelin iyo dhiirigelin oo ku saabsan dhir beerista ayuu ahaa shayga ugu muhiimsan taas ahaa aan magaalada xamar aan u tagay magaalada waxaa ka jira dhismo xoog leh ka jira iyo haddana waxaan ku soo badanayo magaalada xamar bangiyada ganacsigan aad ugu soo badanayo marka waxaan isleeyahay talaabo oo fiican oo dadka Soomaaliyeed ay hore u qaadeen ayay ka mid tahay waxa aad iyo aad oo ii cajibiya waxay ahayd maraan tagnay ceel macaan aan tagnay waxaan u tagay geedaan geedayna meesha marka maamo oo ka mid ah maamooyinka waxay na weydiisay geedaha inaan siino markaas waxaan ku dhahay hooyo gurigaaga ari ayaa ku jooga laakiin ma ka cabsanays miyaa ariga inuu ka cuno geedka markaas waxay tiri waxaan u baahanahay geedka u baahanahay arigan anfac kuma qawee geedkiisi geedkan ayaan korsanay arigana berita iska xaraashaya subaxii markaas soo kacda roobtii soo kacda oo indhahaaga qabanayo ama ku soo jiidanayo waxa waaye ciyaalada ardayda iskuulayda oo qoraxdii oo jirto oo aad ay u kala cararayaan iskuuladii inay waxbarasho ay aadaan taasna waxa waaye waxaan isleeyahay waxaan ku soconaa wada saxan ay hadda ay dalku ku socdaan isleeyahay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خيري واد السلامة مال البعض كسجنتهين هالكاني وشافي ميديا أنا قلنا وشافي عشاء علي أونستي وأتكم هالسنتين سيدا وناكسان عدول صعوتان برامج هذينا ما أنت برامج كنا جيبهم بوحانو شان لهاي إن أنا كو إجنو سعودالكي صاحبك قريولي وكنت جاي مقالة مقدشو مدة صدًا إيو دور سنة أكاديم سجى أيها طبعًا إنه ورهم دونا هدو إلى هيرادو waxyaabihii oo ku soo arkay magaalada Muqdisho ka soo yaabiyay waxyaabihii oo ku soo qancay muddadii oo ka maqnaa dalkaasi yaraantiisa dabcan oo ka soo dhoofay isbedeladii dhacay ayaa gab ahaanba aan ka wareysan doonaa Shaafi oo dhawahay muddo badan dalkii moogay waxaan rabaa markaa maanta inaan isla jajahno xogaa yar horta ma qasna waddanka moogay I think waxaan manayaa 3 sano 32 years أنا كبعدها xilligan dhalinay tahay halkan kama baxday adigoo 33 sano waddanka moogaa haye waxaan tagay xamaraan tagay haye garoonka aad cadda ka degtay garoonka aan cadda dad badan aan ahayn horta team Qoryooli my team Qoryooli horta afar ahayna afar falaas la soconay haye laakiin waxaan ka soo baxnay Nairobi aan maray markii hore haye Nairobi waxaan joogay isbuuc joogo markii hore waxaan soo maray Kigali soo maray okay Kigali soo maray dan waxaan maray Nairobi waxaan maraan ahaa adiga almost suuxaas 7 diyaaradood waxay ka baxaysay Islii ee Nairobi ka baxaysay waxaan maray 7 diyaaradood isku waqti aan haye wadad leh wadeen waxaasdan Soomaaliya wadeen marka waxay ku tusaysaa how elborku uu yahay business waxa hormar actually oo la taaban kara ma aragtay ayaa wadanka jiro waska taqaana dal adiga 30 iyo 2 sano ma aragtay iska burbursana oo ku jira xarbis iyo dagaal iyo ku jira ma aragtay boqolkiiba hal mar masuuliis ma aragtay inuu la sanqaado systemka oo London aan ku noolna ma aragtay inuu la sanqaado misoconayso marka waxyaabihii asleedahay waddanka intaad joogtay ku soo jiiteen kamid waxay soo jiitay one thing waxa waayay hadaa fiiris dalka markaa fiirisiis horta waxa ka socoto dhismaan ka socdaan dhismooyin xoog leh waxa u malaysa waxaan ku tartamoonaa dabaqyada dhaadheerka aan arkayno ma aragtay hadda waddanka ku noolnahay aad waxa loo dhisaa dabaqyada dhaadheer oo dadka
la wada saaro si fiican xamarna sidoo kale waxaa aad hadda u socda waxaa arkaysaa dabaqyo 10-20 oo waxaa arkaysaa dabaqyo lagu tartamaya marka magaalada haddana been sheegan xilliga noogu dambeysay sida biyana ugu dheereed Soomaaliya waxaas hadda la iskala tegay hadda waxaas la iskala tegay at least hadda waxaan qaadanay sistemada caalamka maaragta dabaqyada dheerka waa ayaan arkay waxaan arkay Nairobi islii waxay ugu dambeysay 23 sano kadib ay islii tagay completely islii ma kaseen in qof qabto meesha rabo inuu geeyo islii ka sii maaha sababta waxa waaye islii naftigeeda Soomaalidu waxay geeyeen dabaqyo xaala dhisay waxaa isleedahay dabaq waxaan arkay almost 5,000 oo qoys ma deganaa isleedahay marka Soomaalidu way dadaalooyin laakiin dadaalkii waxaa la rabaa mataqaanaa inuu leeyahay policy inuu leeyahay sharci inuu leeyahay waa gartay hadaa fiirisay islii dabaqyadaas waaweynka oo la dhisay haddana biil aan jirto dhibaato waxay ku qabaan islii iyo Nairobi oo soo noqon doonaa maadaama dalkii dad badan ay ka sugayaan warbixin 33 sano magaalada Muqdisho aad moogeen ya safiyan waxaa tiri waxyaabaha ugu weyn ka arkaysada waa dhismaha guryaha siiba dabaqyada yes waxa ku soo jeedina factor oo indhaha qabanaya waxa waa isbedelkaas oo dhismaha ah waa aad iyo aad taasoo mid ugu horeysa oo indhaha qabanaya midda labaad marka waxa waa hadaa fiirisay general as dalka hadaa fiirisay si dadka u dadaalayaan iyo loo kala ordaayo ama shaqooyinka ama adeeg systemkan dhaqaalaha oo dadka wax walba u kala cararayaan aad iyo taasna ilaahay soo jiidanaysa midda kale waxa waaye arday badan oo jaamacada iyo iskuulaha hadana tagayna waa arkaysaa walow wax inta iskuulada tagto waxa ka tira badan inta banaanka joogta ayaa hadana ka tira badan marka waa qiyaasi kartaa marka aad iyo percentage iskuulada tagayaan iyo inta banaanka jooga inta banaanka wili tira badan midda kale intaas oo arday oo jaamacadihii ka soo baxayaan oo hadana ana shaqooyin aan ahayn iska fadhiyaan dabcan yes and let's say caqabadaha kamid tahay waxay aadahano sanad walba waxa soo qalan jibisa 2,000 oo arday soo qalan jibisa that means waxa waaye 2,000 sanadka haday qalan jibisa sanadka 2,000 oo qalan jibisa 2,000 wax shaqo ay hayaan aysan jirin marka shaqo la'aanta yes waxay kamid tahay almost boqolkii aan dhigi karno 85 ama 90% waxa waaye dhalinyarada Soomaaliyeed ama systemka dawladda hadaan ahno ama caqabadooda waa shaqo la'aanta ugu dhibaatada dhalinyarada haysta waxay tahay shaqo la'aanta kuwa jaamacadaha dhameeyay iyo kuwa kale aan jaamacadaha dhameeyninba kulli caqabadkooda waxa shaqo la'aanta waa haddana ma jirto fikir ama afkaar ay isleedahay oo muuqato hadda maaragtay loogu faa'iidaysan karo xoogga dhalinyarada maaragtay ma jirto marka taasna dhibaato kale ayay ku tahay wadanka dadka waxaa empower garay ama enforce ama ku qasba inay sameeyaan waa maamulka meeshaas ama degmada ninka haysto duq magaalada kore iska dhaaf xataa degmada hadda fiiris waxaan deganahay Wandsworth wada deganahay exactly hadda xaafadan aan deganahay iyo xaafada ku dhegan laba sharci kala leeyahay ay faan Soomaa so hadda xaafadan aan deganahay ninka aan hoostagno waa ninka mayorka meesha oo deegaanka wax walba marka xarunta degmada ayaa laga xukumaa ma aha inaan aan kor meesha ugu sareyso ay tagtama ninka hoos joogo awood wuxuu leeyahay nadaafadaas iyo maxaa la dhahayay in jidkaas uu hagaago ama uu quruxsanaado isaga laga rabaa aad iyo mid kale marka sometimes oo ugu caqabad badan ama magaalada ku arkaysa waxa waay waa caagaha plastic too much sometimes waxaa isleedahay horta meesha gudoomiye ma lahaan like caagaha plastic waxa la jeedaa biyaha wasaqda iyo qashinka general hadaan channel waxaa la rabaa adiga maanta haddaad gudoomiye deegaankan aad ka tahay waxaa mas-uuliyad ku saaran waxtay deegaankana ku saaran sida loo xaaqla ama volunteer dadka ha noqdo horta waxa loo yaqaano municipal ma la arano kuwa meelaha nadiifiya dawladda hoose ma aragtay waxaa isleedahay marka magaalada wareegto ugu horeysa caqabadka waxa waaye shaqadooda ma qabsan laakiin waxa calaamad su'aal aan badana isweydiinaa waxay tahay yaa meeshan ka sometimes waxa waaye anaga hadda waxaan u baranay shaqa u baran laakiin Soomaa ninka meesha joogana somehow arano dadka sometimes falsafada waxay tiraahdaa shaqada naftigeeda waxay ka rabtaa barashada laakiin Soomaa inay dadka soo kacaan ay magaalada xaaqaan ama qashinkaas la iska xaaqo ayaa kisoo waxay tahay welito dhibaatada ugu weyn qofku biyo cabay iska tuuraya caagihii yes because theory ma jiro policy waay wax walba policy ku imaanaya iskuulada kale waa in marka hore la soo maro oo ardayga ama macalinka in loo sheego ee markuu wax barayo inuu mas'uuliyadda u qaato hadda ilmaha yar iskuulada meelaha tagano waxaa la baraa qashinka qaad
nadiifadan meeshaan hagaaji qashin meeshaas ku rid cunuga by the time schoolku dhiganayo waxaa lagu sameeyaa brainwash kaas lagu sameeyaa so marka ilmaha kaamiyeelaya akhlaaqiyana soo diyaarsan soo baxaya sometimes marka magaalada xamar waxa waaye marka kood ugu aadtigto waxa waaye caagas plastiga waxaa maanta ma gacanta ku hayna iyadoo biyo ku jiro marka waxaa kisto waxaa kugu jiro damiirkii oo ah inaad jidid ku tuuro so marka meel walba aad tegaysa marka caagiya warka iska wadataa then waa halkii kale lagu kala garan kara ninka localka jooga iyo ninka kor ka imaada banaanka imaada waxaa lagu kala garan waxaa waaye ninka localka maantana caagaas uu kor hoos u sii soo faaruq isagoo faaruq welita marka lama qabsanin systemka ma qabsanin baabuurka markaa wadato maarata caagina daaqada iskaga tuurto exactly because hadhow waa ku tegaysaa waa laakiin intuu damiirkaaga nool yahay maarata caagaas maanta dhan waxaa la raadinaya meeshii saxda ahayd halkaa ku tuur lahayd la raadinaya marka at least waxyaabaha hadda aan ka baranayno waxaa ka mid ah aad soo aragto waxaa ka mid ah in guddoomiye degmo kasta oo at least oo xaafadaas dustbin oo qofka wax ku tuuri karo waa uu sameeyo yes haddaba very simple waa ugu waxaa waaye yar oo jooga Zimbabwe ayaan wuxuu tegay xaafadiisu tago markaas uu arkay qashinka caaga daadsan fuustooyinka aragtay oo ama fuustooyinka shidaalka lagu keeno Soomaali fuustooyin ay isticmaalaan ama fuustooyinka biyaha lagu keeno ayuu sameeyay fuustooyinku jarjar waa nin shakhsi individual ah mas'uuliyad saaro waa aad iyo aad laakiin wuxuu baraayay dadkan ugu imaaday habkay u nool yihiin fuustooyinkaas uu arkay oo meelaha iska yaala fuustooyinku soo jaray meeluhu dhigay bacuu iskaaga riday dadku tusaay marka in qashin meesha ku tuuro dadku ka dhaadhacsiinaya so standard marka waxay gaareen hadda magaalada ugu nadiifsan Zimbabwe inay noqoto absolutely dadka way baranayaan dadka waxay u baahan yihiin hoggaan oo qof inuu baro systemkas maarag inuu baray u baahan tahay marka waxaan rajeynaa waa lagu tagi doonaa laakiin waxaa laga yaabaa hadda hadalkaas sheegaysid inaysan guddoomiyaasha degmooyinka aysan ku baraarugsaneen way ku baraarugsan yihiin laakiin lagulama xisaabtamo you theory shaqadaada horta maxay keen marka meesha isla xisaabta fiir marka magaalada maraysid waxaa waaye waa inaa ogtahay xaafadaada ma arag nadiif inay ka duwan tahay xaafada kale waa xaafadaada maxay ugu duwan tahay waa competition waa inuu jiraa guddoomiyaasha ma fahad horta waayo xaafadaas ay nadiif u tahay xaafadaan nadiif waa inuu tartan u jiraa waayo xaafadaas sidaas u leedahay xaafadan leen iyaga haddii lagula xisaabtamin then way adkaanaysaa marka waxaa waaye caadiya u noqonaya wasaqdiga waxay noqonaysaa waa caadiyaysa anagu haddana muslim nahnay oo islaamnimadii waxay faraysaa nadaafadda iyo wixii ay faraysa ma arag ay haddana waxaan caadiyeysanay caadi noola noqotay inaan ku noolaan karno wasaqda wasaqdaasi duqa magaalada iyo guddoomiyaasha inkastoo howl badan oo taalo dadka inta badan amniga iyo dhibaato fara badan ay iska jirto dalka iska jira maadaama wadanka bursan iska ahaa haddana taasi ma kaa reebayso in haddana dhanka nadaafadii la ilaaliyo marka guddoomiye kasta ee gobolka Banaadir waxaa wanaagsan at least fursadaas intuu bacantii lagu xiro ya wadooyinka hareerahooda ama xaafadaha la dhigo si qofka qashinka ugu tuuro waxaa laga yaabaa markaasi inay sahlanaanayso in nadaafadaas la ilaaliyo waa gudbinaa taas waxyaabaha kaleente hadda dhalinyartoo kale xaggay ku caweeyaan habeenkii meel ma jirtaa lasugu tago dhalinyara la yahay magaalada lagu nool yahay meeshana caasimadii waay ya how sil u manage garayaan no horta night life-ka meelo badan ay dhalinyarada tagaan horta magaalada maasha Allah way leeyihiin meelo ay dhalinyaradu waqti ku qaataan badan ay leeyihiin xisaab maalintaas kuwana magaalada hoose ku qaataan kuwana waxay tagaan xeebaha meelahaas ay tagaan inta waa arkay wana magaalada very busy haweenkii iyadoo haweenkii aad mashquul jama jira traffic very traffic ayuu traffic yeah haweenkii waxa dhalinyarada waqti fiican ay qaataan masha Allah waxa lagu farxo waa maya is okay dukaamaha business ka dadaal uu socdaa lama dhigi karo dadaal aan gasho waxa waa dadaal fiican oo socoto xaqiiqdii hadda marka inta joogsado kale xamar marka maqashay indhahaada aaxirat oo xamar aan maqashay image gooni ah ku sawir oo ah dhac boob dil qarax inuu ku socdo markaad tagin way oo aad tagin indhaha aaxirat imagination image ku sawir may taas way laakiin marka meesha tagtidna waxa waa image kale ku sawir oo ah inay nolol caadi standard inay tahay magaalada ogaanaysa mifa darto taasna waxa waaye
dadka xamar jooga waxay yihiin dad aad iyo aad adkaysi resilient xaqiiqda waa dadka la dhihi karo waa resilient magaaladaas aragto 30 sano dhibaatada ka jirta ma arag haddana maasha Allah waxa waaye magaalo oo ay si dhaqso ay ku dhismi karto ayay tahay haddaan fiirno dhan kale arrimaha bulshada kale haddaan fiirino ma jiraan waxyaabo wacyigelin barnaamijyo wacyigelin oo dhalinyarta ay sameeyaan dhan walba ha ahaato dee caafimaad ahaan lahayd haddii macnaa maaragtay tacliin iyo horumar ahaan lahayd haddii waxyaabahan ka hadlayno nadaafadda kalanta iska ahaan lahayd ma jiraan seminaaro ama barnaamijyo ay dhalinyarta isbuucyadii ama bilooyinkii mar isugu yimaadaan way jiraan dhalinyarada waxay sameeyaan nadaafadda hadda kale nadaafadda badda xeebta kale jumco walba dhalinyarada muddo hadda waxay xireen 100 isbuuc ay xireen dhalinyarada marka waxay sameeyaan Friday walba way soo baxaan waxay nadiif gareeyaan xeebta nadiifiyaan bis qashinkaas oo 5 maalmood 6 maalmood oo lagu daadiy ay imaanaan ay ka aruuriyaan magaalada waa bilow fiican maasha Allah oo shaqo fiican oo taas ayay qabteen oo wax ku siina mala waa iska waa weydii qof wax ku siina even maqaayadaha businesska oo meesha hortooda ma arag contribution oo weekly xataa hadii dhalinyarada contribution biyaha iyo shaaho ay caawinaa ay siin lahayn ma aragtay more motivation oo noqon lahayd laakiin waxba lagu ma sii taas laakiin iyaga waxay saareen responsibility oo xeebtaas ayay isku saareen just way imaadaan every Friday walba qashinka ay ka durbiyaan haddaan fiirno dhanka Soomaaliya marka la fiiriyo magaalada Muqdisho caasimadda dalka dadka inta badan waxay yaqaanaan maskiin kuriso oo magaalo ku noolaan karaan taajirka iyo qof faqiirka xamar laba system la waay laba system طبقات kale oo dhaxma jirto hadda London waxa way 3 dabaqo waay waxa jira qolo kor saaran oo bahalkii maxaa la yiraahdaa oo taajiriin waxa ku xigta dabaqada middle class waay hadda xaafadda aan deganahay xaafadda hadda ay la joogto waa xaafadda ugu middle class badan tan waay fahmano haadiya iyo dabaqada hoose saddexaad jira marka waxa la rabaa waa inay jirtaa middle class wuxuu kala qarinaa ninkaas kor saaran kan hoose ayuu kala qarinaya aad iyo aad adduunka hadda middle class oo jirin waddankaas isgoon waa 2000 ago I think how malena Plato in la dhahay oo Greek oo book oo qoray Republic ayuu halkaas ku sheegay waa 2000 sano wuxuu leeyahay waa inay jirtaa middle class haduusan middle class jirin waa waxyaabo hadda Afrika haysato hadda maalin tusaale yar ku siinaya Kenya wasaaradda difaaca oo Ingiriis Kenya ayaa waxay tiri waxaan qoranaynaa 350 shaqaale qoranaynaa 1 milyan oo dhalinyaro ma sheegay oo shaqaalaha ajib min badart waa Kenya marka la fiiriyo East Africa dhahna waa waddanka ugu horeeya waa East aad iyo waa 350 askar bis ay rabeen inay qoran 1 milyan oo dhalinyaro marka waa yaabeen marka waxay noqdeen inay iska baxaan ay waxba qoran how do you select 1 milyan oo dad marka middle aniga marka Soomaali ahaan waxa haysanaa waa dabaqad ugu hooseyso iyo dabaqad sare waay hadda tusaale waxaan degnaa Qoryoolay degnaa xamar waxba ugu baahan ninka darta magaalada iska degnaa beeraheena dadka iska falanayaan isbitaalka meesha kaadaysa that's it no waxaan iska haysnaa alxamdulillah dadka tuuladaas joogaan waay hadda laakiin caqabad badan ayaa wadanka ku habsatay oo 30 sano oo taas marka waxay keenaysaa marka dadna inay fursad helaan dadna aan fursad helin marka so marka kan kor saaran kan hoos jooga marka si caadi ah isku arkaya marka ma jirto dabaqad kale oo qaris meesha kuma dhex jirto waxaan rabaa inaan ogaado jaamacado fara badan laga furay magaalada Muqdisho xisaab ma dhaxays oo aad u fara badan ka hadlamayno quality ay leeyihiin laakiin waxaan ka hadlaynaa ardayda subaxii iskooladaas ama galabtii shiftiga qofkii haba aado mala kulantay ardaydii oo waddadiisii maraya image noocee hayaase dareemaysa marka arag arday badan arkaysa oo kuwa dugsilayda ee dharka cadka iyo kuwa darjaalaha oo kale oo iskuulada tagaa caadi magaalada waa arkaysa oo socda arkaysa laakiin jaamacado badan magaalada ku taal aad iyo aad ugu dambeyntii كل سفر كاجا وحو أها سفر قاصع أيوه أها وبعتو كل معلومها وحاضر أونلاين سي مش عقارن مش كها وهاد إن دلكي اللي ديريو أو جرين لقى ديجو
oo arkaysayo macnaha maaragtay xaalufinta waddanka marka hal daliil leeyahay waxa waaye in waddanka inuu dhir aan lahayn ma aha laakiin dhirtii ay la jarayaa oo la cirib tirayaa marka si guud marka u dul martid hadafkii aad ka lahayd aad u tagtay meeshii waxa aad ka filnaysay marka hore iyo hadda oo aad tagtay markaad tagtay maxaa iska bedelay horta waxaan u tagay saa sheegto waxaan u tagay arrinkan dhiranta geedaha oo inaan geeda abuurnaan u tagnay haddaa fiirisid Soomaaliya haddaa fiirisid 30 sano u dambaysa wax geed la abuuro Soomaaliya ma jirto dadka Soomaaliyeedna ma aha qurxinta geedaha waxaa u naqaanaa qofka markuu gurigiisa filadiisa u dhisto inuu geeda yar meesha ku abuurto ayuu u yaqaanaa laakiin markay timaado banaanka markay timaado qofka Soomaaliga ma dareensano muhiimadda ay geedka leedahay waxaa jirtay study ay mar dhow ay sameeyeen qolo research ay sameeyeen oo caafimaadka waxaa la isku xiriiriyay qofka dhirta meelaha dhirta ku nool iyo qofka meelaha dhirta ku nooleen inay kala duwan tahay qofka ku nool meelaha dhirta ku nool maskaxiya waxay wax tartaa caafimaadkiisii maskaxdiisii iyo hawada oxygen ku qaadanaya dhirta ku qaadanaya marka waxay leeyihiin qofka kale oo dhinaca kale oo dhirta ah haddii uu qofkan uu tago ama uu ku nool yahay ayaa waxay noqonaysaa saameyn waxay ku yeelanaysaa caafimaadkiisa ayay ku yeelanaysaa qofka inta horta waxay saameyn caafimaadka ugu yeelanaysaa waxa waaye waxay yidhaahdaan dadka meesha dhirta aan ku oolin ku nool qofkaasi waxay dhahaan caafimaadkiisii oo maxaa la yidhahdaa mental problem ayuu qofkaas u qabaa oo sababta wuxuu qaataa hawada oxygenka ma helo so dadka bini'aadanka waxay neefsadaan wax la yidhaahdo carbon dioxide ayay neefsadaan kabacdina meesha geed ma leh qoraxda si toos marka dhulka ugu dhacaysa leen haddana wuxuu dib u qaadanaya carbon dioxide u qaadanaysa marka waxay leeyihiin firito qofkaas waxay ku tahay maskaxdiisa ayay ku tahay oo ah dad waali ah ama waalan ayaa dadkaas loo tirinaya quraanka haddaa fiirisa almost waxaa lagu sheegaa umalayna 58 geeda lagu sheegay in geedaha muhiim ay leeyihiin quraanka waa lagu sheegay mifad horta aad iyo aad laakiin bulshada fahamkeeda guud qofka haddana cajiibka wuxuu ku leeyahay qofka wuxuu ku leeyahay 20 sano ma aan geed sugi karaa way fan soo ma haddana anu waxaan dhahaa always look 20 sano soo ma aha hadda adiga anaag guursatid oo ilmo dhashid waxaa rabtaa cunugaas 20 sano inaad daba socotid aad rabtaa laakiin why not cunugii geedka inaad daba socotid 20 sano laakiin waxyaabaha shaqo la'aanta keenayna waxa waaye oo ay ka mid yihiin waxa waaye maanta adiga haddaad 10,000 ama 2,000 ama 1,000 geed aa abuuratid 4 sano 5 sano ka bacdi waxaa tahay nin dhaqaale oo ama hanti sameey ayaa tahay aad iyo aad laakiin dhalinyarada hadda taas kuma okay waddanka waxaad ka filaysay ma ku soo aragtay geedaha iyo qaabka u fikraysa marka hore ma jiro horta ina waalinta lagu arkaa geedaha ka hadlaysa ina waalinta la aragtay lagu arkaa hadda fiiri because waxa waayay waxaan way adagtay inta oo fahmaysa geedo meel dhanaan tagay waan ku soo arkay waxaan ka badnayn 20 geed aan ka badnayn aan ku arkay afantaa haddana dadka way diyaarsiiyeen laakiin waxa ka maqan 30 sano u dambeysay bulshada Soomaaliyeed maysan maqlin wax la dhahay positive maysan maqlin 30 sano ugu dambeysay waxaan maqlay negative oo ah iyo ina waxba la qabanay because dadkii waxaa la gaarsiiyey stage oo ah qoloyina u tagayeen ama hay'adu yahay ama NGO yahay wax buu ka soo aruursada dib dambe ugu laabto taas marka waxay keentay dadka xataa marka waxa adiga ka hadlaysa ma arag qofka wuxuu ku arkaa shayga ugu horeysa wuxuu ku fiirinaa inaad tahay NGO inaad tahay taas marka waxay keenaysaa in bulshadan waqti siisid ay wax fahmaan ama laga dhaadhacsiyo muhiimadda geedaha ay leedahay hadda xaafadana dhaxfana fiir si cagaar u tahay waa laakiin guryahan ma quruxsanaan lahayd maanta haddii wax geeda uusan ku ooli lahayn ma quruxsanaan lahayd taas waa marka waata ugu dambeyntii maxaa leedahay dadka waxaan leeyahay waxa waayay inaan xoogga saaran inaan geeda abuuro dadka special dadka Soomaaliya special dadka hadda gobolada dhaxay ama meelaha hadda la leeyahay shabaab laga xoreeyay in horta la fahansiiyo bulshadaas noloshooda inuu ku jiro inuu geedo ku jiro taasna waxay imaanaysaa dhibaato kale waxa waaye wasaaradaha ka jirta oo ku shuqul leh arrimahan ku shuqul leh sababtoo waxa waaye maanta hadda xamar ka degtay elboorka ka degtay waxa wacyi gelin ma arkaysa ku saabsan geedii ku saabsan male
raadiyada iyo TV-da kama socdaan wax wacyigelin kama socdaan iyadana magaalooyinka hadaa wareegtidna ma arkaysa tabeelooyin kusoo jiidanayaan in dadkan ama qof walba Soomaali mas'uul ay ka saartay inay geeda abuuraan iyadana male marka waxa ka jirto little bit wasaaradda oo arrinkan ku maxaa lahayd qaabilsan dhana waxay tahayba wax shaqadii loo igmado ma jirto tusaale yar aan ku siinay fiiri waxaan lagu deeqaa u maleynaa geedo oo wadanka laga keenay oo in waana lagu deeqay geedana lagu deeqay afan soo ma geedana abuurana ma geedahana lagu deeqay marka wuxuu yahay 100 amal wax saas ay yiraahdeen wili xataa dabaaldega waa loo sameeyaa xafladaha loo qabtay geedahana lagu deeqay waxyaabaha realistic Soomaalida ma aha waa afan soo ma okay boqolka ku geedaha marka la keeno geedka sidiis banaan wuxuu wataa caro uu keeno caradaas markay wadan kale ka keento wadankaaga aad keentid waxa jirto waxa la yiraahdo waxay yiraahdaan soil borne disease waxa caradaas waxa dhici karto inay cudur leedahay caradii wadanka banaanka ka keentay oo geedka ahaa inuu caradan kale uu la leeyahay wax la soil borne waxay tahay dadka in wacyigelin xoog leh u baahiyo si aan u fahmo wax walba waxa waa bilaaway ka bilaawdaan oo dhirtaan ay kulli واتحي داودي الجودهان برنامج هني قبنا حق وريسي صاحبك قريولي سفرك وكنت مقالة مقدشة مدة صدني 6 سنة كدبة حلقة أنا جعلنا داود إن أنا كسو قبنا قبكلا أي أكون داود أنت برنامج الحاجة دولها رسائيو halkani waa Shafi Media Production oo ku faraxsannahay هاي inaad na soo booqato oo aad saaxiib la noqoto barnaamijyada aan idin soo baahino kambalka furo oo subscribe-ka inoo saar annagana waxa sharaf noo ah mar walba la socodkaaga geed baa loo fadhiisan jiray geed baa loo fadhiis